xildhibaan maxamed cabdi fuuxaali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadooda ayaa ka hadlay qoys tan yar oo muddo 2 bilood ah si sharci darro ah ugu xidhan saldhigga dhexe ee magaaladooda qoyskani oo laga soo xidhay degmada Xaaji Saalax ayaa dhulkooda oo ku yaala degmadaasi ay ku qabsadeen qoys kale oo isku family yihiin gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka Daadmareed Cali Ismaaciil Murjin waxaanu xildhibaan fuuxaali ku eedeeyay gudoomiyaha maxkamadda inuu ka dambeeyo xadhiga qoyskani dhulkooda lagu haysto oo muddo 2 bilood xukun la'aan ku xidhan saldhigga dhexe ee magaaladooda xildhibaanka arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa Ismaaciil Cawil Tooxyare iyo Yaasiin Maxamed Cawil iyo Gaasira Jaamac Gaabshe waa saddexda qof ay isu dimaashada iyo waalkiis dhalaya muddo bil bay ku xidhan halkan muddo 30 casho ama 28 casho ay ku xidhan yihiin ciqaabaad ku jiraan saldhiggaasay ku jiraan oodweyne waxa laga soo xidhay degmada Xaaji Saalax waxa soo xidhay cadaalad darrada ku qaaday gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Daadmareed degmada oodweyne Cali Ismaaciil gudoomiyaha Cali Ismaaciil ninkaas oo ay dadkaas ku haystaan gacan ay iyagu iska leeyihiin oo 100 sanadood jiray ayay dul degeen isaga iyo gabadhiisa iyo qof kale dumar oo inankiisu ka qabo oo iyaduna isla deegaanka dadkaas qoyskaas oo awood shaarka loo gashan yahay lagu haysto cid kastoo dameen loo weydiiyeyna uu u diiday ugu dambeyntii xildhibaan fuuxaali ayaa ugu baaqay hay'adaha garsoorka inay wax ka qabtaan qoyskani tan yarta ee dhulkooda lagu haysto oo muddo 2 bilood xukun la'aan ku xidhan saldhigga dhexe ee magaaladooda cadaalad darrada intaa leeg waxaan u sheegaynaa cid allaale iyo ciddii ay arrintaas qusayso haddii ay tahay maxkamadda gobolka Togdheer hadday tahay maxkamadda sare ee degmada gobolka caasimadda Hargeysa haddii la ka dhigayo hadday tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo hadday tahay cid allaale iyo ciddii ay arrintaas qusayso warasaabka gobolka Daadmareed taliyaha bilayska waxaan u sheegaynaa dadkaas inay cadaalad darro ku xidhan yihiin awood sheegashana loo sheegtay haddii aan sii faahfaahiyo cadaalad darrada ku xidhan yihiin ninka la yiraahdo Cali Ismaaciil gudoomiyaha 2 bilood dadka marna uu soo qaadayo marna uu hanjabay marna wuxuu lahaa dhulka saxeexa markaana ay ka qaadayeen 2 bilood bay xidhan yihiin 2 bilood bay xidhan yihiin billa jeelka ku jiraan billa eedaad baa hayna marna oodina laga soo qaadayay marna xasaacada laga soo qaadayo oodina la keenay marna waa laga celinay wuxuu ku dhacay ma jiraan waxa laga xukun ku dhacayna ma jiraan cadaalad darradaas ay ku xidhan yihiin waa Cabdikariin Maxamed Caqli telefishinka caalamiga ee Ariel magaalada Oodweyne